runtii farxad weyn baa noo tahay sharaf bay noo tahay inaan maanta aragno 120 arday oo ka qalin jabinaya xirfadaha noocyadooda kala duwan. waxaa kaloo farxad noo ah in 94 hablood ay si gaar u qalin jabinayaan kuna wasaaradda shaqooyinka iyo arrimaha bulshada oo ugu horeeyay wasiirku waxay naga sida hambaliyo iyo bogaadin oo si gaar ugu hambaliyay wasiirku ardayda maanta qalin jabisay oo dhan 120 waxay xirfadani wax weyn ka taraysaa gobolkeena saaxil waxay wax weyn ka taraysaa naftiina waxay wax weyn ka taraysaa goobaha shaqada waana guul ka mid ah guulaha gobolka saaxil maanta gaaray si gaar ah waxaan baleenayaa ardayda maanta qalin bedelatay waxaana leeyahay hambaliyo kulo aqoontu ma dhamaato waxa la naga rabaa in halka si wadaan oo hore ugu socotaan xirfadaha kala duwan ee nolosha xirfaduna maanta in badan bay ka hadalnay waa shayga kaliya ee maanta shaqo lagu helo shaqo la'aanta baahsan ee dalka jirta ta kaliya laga bixi karayo waxay tahay in xirfad la barto wasaaradda shaqooyinka iyo arrimaha bulshadu waxay markasta la dagaalamaysaa shaqo la'aanta iyo saboolnimada maanta waxay farxad weyn oo ah anagoo kaashanay hay'adda concern worldwide oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo maamulkeeda iyo shaqaalaheega inay mashruucan iyagu fulinayso iyagoo kaashanaya hay'adaha EU-da aad iyo aad baan markaa ugu mahadnaqayo hay'adda iyo concern waxaana leeyahay bal hal mar shacabka loo timo hay'adda concern iyo wasaaradda shaqooyinka oo fulinaya siyaasadda daryeelka bulshada oo qayb uu ka yahay mashruucani runtii waa mid lagu la dagaalamayo saboolnimada waxaan ognahay shaqo la'aantu xaaladda halka ay marayso waxaan ognahay xal kaliya maanta lagu la dagaalami karayaa waa in dhalinyaradeen iyo hablaheena iyo aqoonyahankeena xirfad la baro taasoo maanta midheegu waa la hayaa xirfaddan waxaa la nii barayaa inaad toos u shaqo gashaan waa mid aan u baahnayn gacanta leena qabto waa mid u baahan inaad idinku isku shaqaysataan waa mid u baahan inaad idinku shaqo abuurataan waxaa taa dheer in maanta laynagu wareejin doono qalabkii aad shaqada ku bilaabi lahaydeen aad ku shaqo tagi lahaydeen taasina waa guul waxaana leeyahay hambaliyo siyaasadda daryeelka bulshada waxaa daadihiyeysa oo hormood ka ah wasaaradda shaqooyinka iyo arrimaha bulshada iyadoo kaashanaysa hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin ee concern worldwide ay ka tahay waxay ku dhowdahay gabagabo waana madhaheegii tan maanta loo joogaa wasaaraddu hore waxaa u diyaarisay siyaasadda shaqo caabinta anigoo ka wasaaradaha waxaan diyaar u nahay cid kastoo u diyaar u ah inaad horena waxaa u soo qaadatay shaqo carbin hal bil ah oo ay naga caawiyeen hay'adaha kala duwan yuafonko gaafo iyo soyka iyo kale waxaan leeyahay dadaalka aad gobol geliseen waad ku mahadsantihiin ka wasaar ahaan farxad bay noo tahay sharaf bay noo tahay inaan maanta aragno marihii waqtiga dheer la soo waday oo aan goobjoog ka ahaa bilowgeedii oo aan goobjoog ka ahaa geyntii goobaha ay shaqo carbinta ku baranayseen taasoo waa guul maanta in madhaheegii halkan loo wada fadhiyo waana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ugu dambayn waxaan rajaynayaa inaad horumar guulad gaari doontaan wasaaradduna garbina ayay taagan tahay waana ugu farxad in maanta la gaadho xirfaddii nolosha oo aad ku shaqo tagi lahaydeen taasoo maanta aad ka uga tihiin inaad shaqo tag u tagtaan adigoo ka wasaar ahaan garbina ayaan taagan mar kasta waana ku faraxsanahay xirfadda aad barateen waana ta keliya ee maanta aad ku gaari kartaan guulaha aad raadinaysaan waxaan rajaynayaa inaad horumarkan aad sii wadaan oo inaan halkaa ku joojin maadaama aad bulshada dhex tegaysaanna waxaan nagula dardaarmayaa inaad noqotaan dad bulshada si daacada ugu adeega dad dabeecad leh dad dhaqan wanaagsan bulshada ula taga oo xirfadda ay barteen si daacada ugu adeega isbeddelka nolosha aad raadinaysa wuxuu ka bilaabmaa xirfadda waxay idin horseedi doontaa inaad meel sare gaadhaan tanoo keliya lama baahnee mid iyo laba iyo saddexba waa u baahan tihiin ka wasaar ahaan oo kaashana laamahayaga iyo baalasheeda waa sii wada doon dadaalka waa inagu hambalyaynayaa wasaaradduna waxay idin ballan qaadaysaa inuu xafiiskeedu u furan yahay in mar kasta wixii shaqo carbin ah iyo wixii shaqaaba ay naga taageeri doonto wakhtigoo dheer waxayna leeyahay hambaliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu